سيدي معالي رئيس وزراء، أصحاب السعادة والمعالي، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يشرفني أن أتقدم نيابة عن أسرة المرحوم الوالد عبد الرحمن عمر عثمان إنجنيريسو بخالص الشكر والامتنان إلى السيد فخامة الرئيس وإلى خالص الشكر والامتنان إلى جمهورية فدرال الصومال. mudane madaxweyne mudanayaal iyo dhammaan shacabka Soomaaliya, marka hore waa in iska tacsiyeynayna geeridii ka timid Allahu naxariiso duqa magaalada ana gudoomiye gobolka Banaadir aabahay Cabdiraxmaan Umar Usmaan Injineeriso. Allahu naxariiso aaba Cabdiraxmaan ma uusan ka dimin oo keliga qoyskiisa, laakiin waxa uu ku geeriyooday shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed. mudane madaxweyne, waxaan ummadda Soomaaliyeed kaga madax celinayaa ducada alla garab taagan yahay intii uu hosbitaalka ku jiro iyo markii uu geeriyooday kadib iyo maanta oo aanan taagannahay inaan ducayno. fajazaakum allahu khayran. madaxda dowladda waxaan kaga madax celinayaa dadaalkii iyo juhdiga ay ku bixiyeen aabahay. mudane madaxweyne, الله نحريس آبه وحنو أهانين شقوين بدن كسو قابل دولة وحنو مهد ألينا يا دمان انتو لسو شقية آبه إنجنيريسو وكو قربسي كربكيسان إن شقديس اوكا قول دارو شعب قبل الصوماليا وحان إذن باقايا إنان حال كيدا كسي ولان هولدي الشقدي وعاصمدان كودا آبه سأسمعان ونأخذ مد هالمرتا ما سنت مدني مدحوينه. If you allow me, Your Excellency, Mr. President, just to express a few words in English. Okay. Today is not a day of sorrow, but rather